kusoo dhawaada warka duurnimo calansida media fadlan haddii anagu cusubtaa subscribe saar kumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo arbacaha qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo soo adeegsaday madaxweynihii hore galmudug xaaf waxa uu yidhi xalaalba ma ahan shirka musharaxiinta mucaaradka ee ka socda muqdisho madaxweynihii hore galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf oo la hadlayay warbaahinta ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan shirarka siyaasadeed ee magaalada muqdisho ugu socda musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina sida weyn u dhaliilsan dowladda filla soomaaliya xaaf ayaa sheegay in shirkani uusan ahayn mid xalaal ah islamarkaasina aysan ka soo bixi doonin wax natiijo ahay sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore galmudug ayaa sababta ku sheegay in madaxda qaar ee shirka fadhiso aysan dalka waxba u qaban isaga oo si gaar ah u weeraray ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya dalka xasan cali khayre oo inta ciidamo ii keensaday xilkaygii iga soo ciirsaday dhuusamareeb ayaa ka mid ahi shirka muqdisho muxuu shir ka noqonaya xalaalba ma ahane ayuu yidhi axmed ducaale geelle xaaf sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday tabashada ay musharaxiinta ka muujinayaan guddiyada doorashooyinka wuxuuna sheegay in keliya ay wadaan marmarsiyo iyo inay carqaladeeyaan doorashada soo socoto isaga oo hoosta ka xariiqay in la wada ogaa sidii ay ahaayeen guddiyadii uu sanadkii 2016 magacaabay xasan sheekh maxamuud si kastaba muqdisho ayaa martigelinayso shirar siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaasi oo looga hadlayo doorashada gaar ahaan muranka ka taagan guddiyada doorashooyinka qaranka xaaf ayaa si gooniya u beegsaday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre maadaama dagaal culus uu ku qaaday xasan cali khayrena waxaa hore usoo adeegsaday madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaf ayaa iminka la filayaa in filla soomaaliya ay kusoo shubatay dhinaca kale shirka musharaxiinta oo galay maalintiisii shanaad iyo wararkii ugu dambeeyey magaalada caasimada soomaaliya waxaa weli ka socda shirka midowda musharaxiinta oo galay maalintiisii shanaad shirkani oo gabagabo marayo ayaa waxaa ka qayb galayay in ka badan 10 musharaxiin oo u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota 2021 musharaxiinta ayaa shirkooda oo wada tashiyo ahi diiradda ku saaraya arrimaha doorashooyinka gaar ahaan muranka ka taagan guddiyada doorashooyinka dalka sidoo kale waxay warbixino ka dhageysteen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ururada bulshada rayidka ah iyo culimada soomaaliyeed sidoo kale haweenka iyo dhalinyarada waxa ay sidoo kale hadda warbixino ka dhagaysanayaan milkiilayaasha warbaahinada iyo xubnaha kale sidoo kale agaasimayaasha warbaahinada magaalada muqdisho ayaa gebi ahaanba iminka shirka ugu socda magaalada muqdisho intii oo socday shirkani waxaa sidoo kale lagu dhisay guddoon ay yeesheen musharaxiinta kaas oo uu hogaamin doono sheekh shariif sheekh axmed gabagabada shirkan oo maalmo qaatay ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan doorashooyinka iyo xaalada dalka soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana jira khilaaf u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dhinaca kale xog xasaasi ah cali guudlaabe oo maalintii saddexaad ka baaqday safar uu ku tagi lahaa magaalada beledweyne kadib markii maleeshiyaad aad u hubaysan ay xalay ilaa saaka kusoo dhawaadeen garoonka diyaaradaha ugaas khaliif madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa maalintii saddexaad ka baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada beledweyne kadib markii maleeshiyaad hubaysan oo ka caraysan doorashadii is-hortaag ku sameeyey safarkiisa maleeshiyadan oo hogaaminayo jenaraal abuukar xuud oo ah nin qabiir ka ah dhanka ciidanka islamarkaasina militarigii soomaaliya ee dowladii maxamed siyaad bare kasoo shaqeey jiray oo ahaa musharax xilka madaxweynaha hirshabeelle balse laga hor istaagay ayaa wacad ku maray inay dagaal adag la geli doonaan cali guudlaabe haddii uu kasoo dego magaalada beledweyne oo lagu wado in xaflad caleemasaar ahi lagu qabto islamarkaasina markii saddexaad ayaa laga baajiyey wararka qaar ayaa sheegaya inay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo tabashadaasi balse ma jirto wax guulo ahi oo ilaa iyo hadda laga gaaray maleeshiyaadkan oo fariisin ka samaystay deegaanka ceelgaal ayaa halkaas ku haysta hub aad u fara badan waxayna diyaar u yihiin inay magaalada usoo dhaqaaqaan haddii ay soo degto diyaaradda sida wafdiga cali guudlaabe doorashada ka dhacda magaalada jowhar waxaa loo arkaa mid afduub ahayd inkastoo markii dambe mucaaradka iyo muxaafadba ay si isku mid ahi usoo dhoweeyeen si kastaba ha ahaatee cali guudlaabe ayaa iminka xaaladda ay ku xun tahay islamarkaasina la leeyahay farmaajo ayaa dusha kugu keenay hirshabeelle annagana hiiraan kama soo degi kartid
xog xasaasi ah ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya oo bilaabay amar diido iyo kala qaybsanaan culus wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada u badan beelweynta Habargedir oo ku sugan inta u dhaxaysa Marka iyo Afgooye ayaa sameeyay amar diido kadib markii lagu amray inay ka soo baxaan aagaasi si halkaasi ugu howlgalaan ciidamo ku beel ah beesha Mareexaan sida aan xogta ku helayno ciidamada u badan beesha Mareexaan ayaa xoojinaya laba urur oo u badan qabiilka Biyamaal Direed ah kuwaas oo looga gol leeyahay in la baabi'iyo saameynta Habargedir ee Shabeellada Hoose madaxweyne Farmaajo ayaa damacsan in awoodda gobolka Shabeellada Hoose gacanta loo geliyo qabiilka Biyamaal maadaama beelaha Hiraab ay ka soo horjeedaan muddo kordhin ama ku shubashada doorashada madaxweyne Farmaajo horey ayay ahayd markii amar ka soo baxay madaxweyne Farmaajo oo fulinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen uu beelaha mudulood ku sameeyay hoos u dhig siyaasadeed asagoo inkirsan deegaanka mudulood ee gobolka Shabeellada Hoose arrintan ayaa daaha ka rogaysan naceebka kaamuray ee madaxweyne Farmaajo u qabo guud ahaan beelaha Hawiye gaar ahaan beelweynta Hiraab sida ila wareedyo ka agdhow agaasima Fahad Yaasin ayaa sheegaya in madaxweyne Qoorqoor asagoo fulinaya amarka agaasimaha Nisa ahna milkiilaha dowladda uu odayaal ku abtirsada beelaha Habargedir u soo dhiibay fariin colaadeed taasoo ay ku sheegeen in qabiilada kale Hawiye ay ka soo horjeedaan xilka ra'iisul wasaaraha loo magacaabay beesha arrintaasi oo ah kicin colaadeed oo sal iyo raad toona lahayn balse laga leeyahay ujeedooyinka iska horkeenida qabaa'ilada Hawiye si loo baabi'iyo cududa midoobaysa ee beelahaasi ku aftirsada waxaa la falayaa marka uu bilowdo dagaalka looga soo horjeedo diktatoriyadda in la dhiso dowlad sal ballaaran oo dadka Soomaaliyeed ku midaysan yihiin iyo dowlad goboleedyada ay dhisanayaan deegaanada beelaha Hawiye si loo saxo wixii qaladaad oo jira taariikhda waa markii ugu horeysay la dareemayo midowga beelaha Hawiye cudud ahaan iyo siyaasad ahaan iyadoo ka feejigan kala qaybinta madaxweyne Farmaajo la damacsan yahay in uu beesha ka dhigto mid uu dilo mid uu cunaqabateeyo mid uu dulaysto lama oga xiisada ka soo cusboonaatay Shabeellada Hoose in ay ku soo fidi doonto gobolada kale ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ku badan yihiin beelweynta Hawiye dhinaca kale dowladda UK oo war ka soo saartay muranka doorashada fariin culusna u dirtay madaxda dowladda federaalk Soomaaliya dowladda UK ayaa si adag uga hadashay khilaafka weyn ee ka taagan gudiyada doorashooyinka Soomaaliya ee la filayo inay dhawaan dalka ka dhacdo doorasho kuwaas oo ay ka soo horjeesteen musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya dowladda UK ayaa madaxda iyo hoggaanka dalka ugu baaqday inay furaan saaxadda siyaasadda isla markaasina ay ogolaadaan aragtiyada kala duwan ka hor inta aan la gaarin doorashada 2021 diblomaasi ka tirsan howlgalka UK ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laguna magacaabo James oo shalay hadal ka jeediyay shirka arrimaha Soomaaliya ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku baaqay in codeynta doorashada Soomaaliya ay noqoto mid xalaal ah isla markaasina ay raali ka wada yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda isku haya iyadoo Soomaaliya isku diyaarinayso in ay guda gasho geedi socodka doorashooyinka hogaamiyayaasha Soomaaliya waxaa waajib ku ah in ay furaan saaxadda siyaasadda ayna ogolaadaan in la cabiro fikrada kala duwan ayuu yiri sidoo kale James ayaa ku baaqay in laga wada shaqeeyo in ammaanka uusan faraha ka bixin inta ay socoto doorashada si aysan taasi fursad ugu noqon kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ugu dambeyntii Mr James ayaa ka hadlay weerarada lagu beegsado kooxaha samafalka ee ku sugan gudaha Soomaaliya iyo waxyeelada loo geysto dadka shacabka ahi ayaa sheegay inay arrintaasi walaac weyn ku hayso isla markaasina ay mudan tahay in si adag wax looga qabto isku duubni caalami ah waxay muhiim u tahay in Soomaaliya looga taageero wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadanimada ayuu ku daray shirka qaramada midoobay oo u dhacay qaab online ah waxa ka hadlay labada ergey ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika James Swami iyo Francisco Mandera oo labaduba ka hadlay doorka ay kaga jiraan taageerista geedi socodka xasilinta iyo dowladnimada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ugu dambeyntii shirkaasi hadalka jeediyay ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada Soomaaliya waxa uu sheegay inay Soomaaliya ka go'an tahay qabashada doorashada baarlamaanka dabayaaqada sanadkani iyo doorashada hoggaanka horaanta sanadka soo socda ayuu yiri